الله كشاره وعاد النسان الله كشاره أضود منايا دلكارن جوغا أضود منايا دلكارن جوغا محاو دوما نندوب له كانت محاو دوما نندوب له كانت wixii ka dambeeyay markii gobolada dalka Soomaaliya uu ka bilowday dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah al-shabaab waxa laga gaaray guulo la taaban karo waxaana horseed u ahaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale ciidamada deegaanka oo u badan dadka deegaanka oo is abaabulay markii horena ahaa macawisley si gaar ahna ula dagaalami jiray kooxaha argagixisada al-shabaab meelaha ciidamada guulaha ay ka gaareen waxa kamid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya qaybo kamid ah gobolka Galgaduud inkastoo aysan badnayn oo howlgalkaasi uu u muuqday mid dhicisoobay kal hore kadib markii laga soo laabtay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo la doonayay in cadawga lagu la dagaalamo warbixin ayaan ku dul istaagi doonaa meelaha cadawga lagu la dagaalamay guulihii laga gaaray iyo sidoo kale meelaha qaar oo laga yaabo in siyaabo kala duwan amaba arrimo kale ay dhiciseeyeen haddaba si sheer garay muuqaalka si dad badan u gaaro page-kana ku soo bir aan ku bilaabay gobolada dalka Soomaaliya waxa si isku mid ah inta badan hadda kaga soconaya gulufka ka socda ee lagu la dagaalamayo kooxaha argagixisada al-shabaab balse waxa guuleystay qaybo kamid ah oo ka mid yahay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwada kala duwan ee ah kuwa commandosta sida Gorgor Haram Cad iyo militariga Soomaaliya oo qaybo kala duwan isugu jira ayaa waxa ay guulo la taaban karo ka gaareen intii dagaaladu ay socdeen cadawga al-shabaab dagaalka lagula jiro iyadoona ciidamada ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada xoreynta deegaanka gaar ahaan kuwii horey loo oran jiray macawisley gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee guulahaasi laga gaaray argagixisada al-shabaab deegaano badan ayaa laga wareegay qasaare aad u baahsan waa lagu gaarsiiyay oo waxa looga diray horjoogayaal iyo maleeshiyaad dagaalamayay ilaa dhowr dagaal oo maleeshiyaadka lagu galay deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan ayaana looga saaray ciidamada dawladda Soomaaliya ee ah ciidamada qalabka sida oo qaybo kala duwan isugu jira ayaa waxa ay u badan yihiin ciidamo haysta tababar casri ah gaar ahaan commandosta Gorgor waxaana ciidan commandos waan joognaa irka iyo meel kastoo ka tara caqabad ma joojin karto iyo buuraha waaweyn laga bogo gacan baa la gaarnaa daruuraha midow waana commandos Soomaaliyeed adow waan ku dilnaa gacan bira iyo meel kastoo joogaan irka dhulka badda saara biigalaanka lama deegaanada markaas iyo meel kasta diyaar ma tihiin yaa tihiin commandos Soomaaliya sidoo kale meelaha qaar waxaa ka qayb galaya ciidamada Haram Cad oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kula dagaalamay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona fariisimo badan maleeshiyaadka ay ka saareen ciidamo habaysano eegano diyaaro markii hoosha loo diro ku hagaajiyanahay ozel harakat harmacas الله كشاره وعاد النسان الله كشاره أضود منايا دلكارن جوغا أضود منايا دلكارن جوغا محاو دوما نندوب له كانت ciidamada xoogga dalka ee militariga Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa ka qayb qaadanaya dhowaan gobolka Galgaduud waxaa ka baxay ciidanka qaybta 12aad gaar ahaan guutada 15aad waxa ayna gaareen qaybo kamid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya iyadoona hadda ay qayb ka yihiin howlgalladaasi
su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay gobolka Galgaduud oo ka mid ah meelaha ugu badan oo kooxaha argagixisada al-shabaab shacabka Soomaaliyeed ay ku dhibaateeyeen wixii la ogaana ay ka sameeyeen sida burburinta ceelasha, gubista taawarada, atiinooyinka, qafaalashada dadka iyo sidoo kale xoolaha. maxaa iminka hortaagan? adiguba hadda daawanaya muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa qaybta faallada inaad aragtidaada inoogu reebto, maadaama dagaalo amaba howlgallo laga bilaabay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ay noqdeen kuwa dhicisoobay iyadoona cadowgu meelo badan gobolka uu ka joogo. adiga ayaana ku daynay su-aashaasi inkastoo ay jiraan tuhumo badan oo la qabo oo ku aadan waxyaabihii dhiciseeyay howlgalladaasi la qorsheeyay in ay ka dhacaan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. muuqaalkana si sheer garay si dad badan u gaaro. ciidamada Soomaaliya waa kuwo awood iyo cudud u sheegtay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab, gaar ahaan meelihii howlgallada iyo dagaalada lagula galay intii howlgalkani uu ka soconayay. dhinaca kale gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa weli socda diyaar garowga loogu jiro kaas oo aan weli dhaafin Cadale. waa kaaga mahadcelinaynaa halkan haddaad nala soo gaartay. muuqaalkana si sheer garay si dad badan uu u gaaro. page-kana ku soo biir oo like iyo follow saar si dhiirigelin inoogu noqoto. qaybta faalladana aragtidaada waa inoogu reebi kartaa.